to look like a long shot if Abdi Sharif can make it 3-1 Liverpool here. Abdi Sharif waa wiil Soomaaliyeed oo ciyaara kooxda Liverpool wuxuuna kooxda la seexday heshiis heer sare ah oo uu kaga mid noqonayo laacibiinta ay Liverpool ku tashato. laacibkan qadka dhexe ee 18 jirka wuxuu kooxda ka tirsanaa ilaa markii uu 6 jirka ahaa wuxuuna 3 sano ka hor bilaabay inuu kooxda u ciyaaro ayaa lagu yiri war saxaafadda Liverpool ay soo saartay. wuxuu ciyaaraha ku bilaabay tartanka FB-ga ee dhalinyarada wuxuuna kulankii ugu dambeeyay dhaliyay gool kulaad ay Liverpool ku qaaday koobka. waxay ahayd markii ugu horeysay muddo 12 sano ah oo kooxda ay heerka gaarto. Stephen Gerrard wuxuu toddobaadkii hore sheegay in qaab dhismeedka Abdi uu u dhigmo ciyaartoyda waaweyn wuxuuna Gerrard intaasi raaciyay Abdi inuu orodka aad ugu wanaagsan yahay uuna lagu dhaadheer yahay wuxuuna ka dhex muuqday kooxdiisa iyo ciyaartoyda keedka. sidaa daraadeed waxaan isku dayaynaa inaan Abdi ku boorino sidii uu u noqon lahaa mid ciyaaraha ka qayb qaato. boqolkiiba waan ku raacsanahay Sharif 17 jirka inuu tababar uu dhawaan ku qaatay akaademiyada kooxda si uu uga mid noqdo kooxda Liverpool. If Abdi Sharif can make it 3-1 Liverpool here, Sharif, who improved throughout the game and now ready to make a big mark on this, which he does. 3-1 Liverpool. That's another quality penalty there from Abdi Sharif. Massive penalty for Liverpool just to give themselves a little bit more breathing space and put Abdi Sharif wuxuu ku dhashay Soomaaliya wuxuuna ku soo barbaaray Turkistan. Sharif wuxuu ciyaaraha kubadda cagta bilaabay markii ay qoyskiisa u hayaameen dalka UK isagoo 3 sano jir ah. wuxuu waqtiga caruurnimadiisa uu la soo qaatay bulshooyinka St Margaret's iyo dugsiga hoose Lowlands. inta badan xilliyada uu fasaxaya isaga iyo walaalkii oo 8 jir ah kana weynaa isaga ayay wada ciyaari jireen kubadda cagta. markii ay daadiisa 6 jir gaartay Sharif wuxuu nasiib u helay inuu tababar uu ka helo Liverpool wuxuuna si toos ah ugu biiray akaademiyada kubadda cagta Liverpool.